الحمد لله على نعمائه والشكر له وعلى توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha muslimiinta leh ee daawanaya, waxaan jeclaystay maanta inaan la wadaago arrin runtii u baahan in laga hadlo. Arrintaasoo ah qof walboo naga mida wuxuu raadinayaa sidii uu jannada ku gari lahaa, isla markaana uu naarta uga badbaadi lahaa. Laakiin haddana qaabkaasi ma aha qaabkii adiga aad doonto iyo wixii adiga aad doonto, laakiin diinteennu waxay u jidaysay nidaam iyo meel arrinkaas loo maro. waxaa maalmahan aad u socota, maadaama bishii barakaysneed ee Ramadaan uu nagu soo dhow yahay, in la isu diro, iyadoo kilibyada la isugu dirayo, Facebookga la isugu dirayo, WhatsAppka, Snapchatka, dhammaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, xadiis loo tiirinaya nabiga calayhi salaatu wassalaam oo ah ninkii Ramadaan gaarsiiya, ama idaa ballaqta shahra Ramadaan, idaa ballaqta annaas shahra Ramadaan, haddii aad bisha Ramadaan dadka gaarsiiso, xurimat calayka naar waa kaa xaaraan. macnihiisu waa intaa wey, waa xadiiska nabiga loo tiirinayaa, waxaana macnihiisu yahay qofkii dadka u sheega in bisha Ramadaan ay soo gelayso, naar waa ka xaaraan. sidaa darteed baa aad la isugu diraa. xadiiskaas marka aan dul istaagno, kow, marka hore xadiisku waa xadiis aan jirin, kutubta axaadiistana aan ku qornayn, sida ay caddeeyeen culimmada ku takhasustay cilmiga mustalax alxadiidka ama cilmiga lagu ogaado axaadiista iyo sida ay saxiixa u yihiin iyo qaabka la isugu wariyey. sidaa darteed xadiiskaas horta waa xadiis aan jirin, xitaa daciif ma aha, bal waa xadiis aan jirin. mar hadduu arrinka saas yahay, marka khatar bay imanaysa. khatartaasna waa maxay? in aad ku been abuurato nebiga calayhi salaatu wassalaam. qofkii nebiga ku been abuurta oo war uusan nebiga sheegin ka sheegana, xadiis saxiixa ayaa nebiga calayhi salaam waxa uu ku leeyahay, ninkii aniga igu been abuurta falyatabawa maqcadahu min annaar, yacni booskiisa naarta ha ka daydaydo ninkii waxaanan aniga lahayn ama hadal aanan lahayn ii tiiriya ama igu been abuurta. sidaa darteed Abu Hurayra radiallahu canhu xadiiskaas ayuu nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam, aadka khatarta u ah qofkii ku dhacana waciidkaas uu ku sifoobayo. haddaba adigoo naar ka cararayay, haddii aad naar aad kasbato, soo dhibaato ma aha. adoo naar ka cararayay, haddii aad waddadii naarta lagu gelaya aad aado, dhibaato badan bay leedahay. qadiyaddaas marka waxay u baahan tahay in laga fiirsado axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam, inta aadan gudbin aad iska hubiso ama dadka ahlu cilmiga u sheegto. qadiyadda labaad ee arrinkan khatarta ku ah waxay tahay, naar loogama badbaado xadiis la isu diray. xadiis aad dirtay naar loogama badbaado, laakiin naar waxaa looga badbaadaa marka hore Allah subxaanahu watacaala fadligiisa iyo naxariistiisa. intaa dabadeedna waxaa laga rabaa inaad la timaado camal saalixa oo kaa badbaadinaya naarta. waxaa kaloo iyadana arrintan jirta in ay ku jirto caqiido xumo, ama qofkii inuu ictiqaadsan yahay wax aan sax ahayn. maxaa yeelay haddaadba aaminsan tahay hal xadiis oo la diray inay naar kaa celinayso, waa arrin khatar iyada laftigeeda oo loo baahan yahay qofku inuu iska saxo. axaadiistaas way fara badan tahay ramadaanka daciifka ee ramadaan ku soo aroortay. waxaa ka mid ah, allahuma baarik lanaa fii rajab wa shacbaan wa balliqna ramadaan. in dadka badan way adeegsadaan xadiiskaas oo ah, ilaahu noo barakee rajab iyo shacbaan, ramadaanna na gaarsiiye. xadiisku waa munkar alxadiis, sida Bukhaari uu oranayo. waxaa ka mid ah axaadiista daciifka ee ku soo aroortay ramadaanka, allahuma ahilhu calayna bilamni waaliimaan waasalaamati waalislaam. iyadana waa la isu diraa oo ilaahu ramadaankii ama bishii ay noo dhalataa oo dusheena ha ahaato amni iyo iimaan iyo nabadgelyo iyo islaam. iyadana waxa weeye waa daciif weeye. axaadiis waxaa jira iyadana dadka khudabada ah ama khudbeeya aad ay u soo qaataan oo ku badan, oo isagana xadiiskaasi sida culimmada axaadiistu ay sheegeen uu yahay xadiis baatil ah. waa maxay? adalukum shahrun cadiim. marka waxaa ku jirta xadiiska, bil barakaysan baa idiin timid, ina awalahu raxma, tobanka hore ama inta hore waa naxariis, wa awsaduhu maqfira, inta dhexe waa dembi dhaaf, wa aakhiruhu cidqu min annaar, aakhirkana waa naarta la iska xoreeya. xadiidkaas iyadana isagana waa xadiid baatil ah. axaadiista marka aad bay u fara badan tahay ku soo aroortay, ilaa culimmada waxa ay soo gaarsiiyaan ama ay keenaan dhowr iyo 30 ilaa 40 ku dhow. sidaa darteed qofka muslimka walaalayaal waxaa laga doonayaa in uu ka fiirsado
waxa uu dirayo axaadiid kaliya ma aha baryahan waxa socda whatsappka iyo facebooka iyo waxyaabaha socda waxyaaba khatara ayaa ka dhex socda waxyaabahaas waxaa loo baahan yahay intaadan dirin inaad ka fiirsato مثلا waxaa arkaysaa nin baa la rabaa in wax laga sheego ama madaxweynaha ahaada ama nin dadku ay dhibsan ay macnaha ay necab yihiin ama markaasa wax been abuura laga sameynaya sawirro la isku soo rakibaya waa lagu soo diraya waxaa lagu leeyahay hebel arag sidaas uu sameynay ma aragtay waxaa ka mid ah waxyaaba aan jirin oo dhan hadda calaamadii Adidaska la soo qaadaya nin baa sharabaadka Adidaska sawiraya ha iska ilaaliya magacii Ilaah baa saan lagu qoray dadoo iska jira waxaas oo dhan waa faals maal dhawad mid baa liintan la cunay bambeelmada ama liintan ma aragtay mandariinida la cuno intuu biro ka soo buuxiyay ayuu furaya markaas uu leeyahay biraan ka dhaxelay arka waxaas oo dhan marka walaalayaal ha la iska ilaaliyo waa been kumana sii jirto waxa markii ay tahay arin diin ay tahay sidaa darteed baan walaalaha uga digayaa waxaan leeyahay aan iska ilaalino khayrka qaabab fara badan oo lagu raadsadaa jirta waana qaabkay diintu noo sheegtay ha lagu raadsado ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in uu ramadaan na gaarsiiyo oo cibaado suuban nagu gaarsiiyo caafimaad iyo firfircooni uuna naga dhigo kuwii sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa nagu amray rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu noo jideeyey kuwii ku caabudo uu naga dhigo ayaanu ilaahay weydiisanaynaa intaas ayaan kelmadii ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh